sidee ayaa markii aad sawir gashid haddii wax un agtaada yaalaan ama ay kaa dambeeyaan waxaasna aadan doonayn in ay ka muuqdaan sawirkaaga waxaas sidee ayaad u remove gareyn kartaa oo aad meesha uga saari kartaa iyada oo ayna cidna dareemin in aad meesha wax ka saartay amaba laba shay oo isaga yaala sidee ayaa mid u remove gareyn kartaa oo meesha uga saari kartaa kii kalena u dayn kartaa iyada oo aan la dareemin in aad meeshaan wax ka saartay waxaa jira application cajiiba applicationkan cajiibka ah ee hortiina ka muuqda ayaad la soo degaysaan oo Play Store-ka iyo meelaha kale ee ku jiraba waad kala soo degaysaan markii aad la soo degtaan application-kan gudaha ayaad u galaysaa deedna waxaad soo gelinaysaa sawirkii aad rabtay in aad agtiisa wax ka saartid ama aad wax ka remove gareysid tusaale ahaan qofku ag taagan ayaa rabtaa inaad remove gareysid oo si qurux badan oo aan la dareemin ama laba shay oo isaga yaala ayaa rabtaa mid inaad meesha ka saartid laakiin aan la dareemin in aad meesha wax ka saartay application-kan markii aad sawirka soo gelisid waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay tools deedna hoos ayaa u soo degaysaa meeshaas ay ku qoran tahay healing-ka ayaad ku dhufanaysaa deedna wixii aad rabtay in aad meesha ka saartid ayaa saa u taabanaysaa wixii way calaamadoobayaan deedna si aan la dareemin ayay wixii meesha uga baxayaan oo meeshii waxay noqonaysaa meel baabah ah oo aan la moodin inay meeshaan wax yaaleenba application-kan haddii aad ka heshay saaxiib la sii wadaag asxaabtaada sidoo kale waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto kaaga codsanayaa in aad subscribe saartid kanaalkayga YouTube-ka waxaad ka helaysaan profile-kayga TikTok-ga waa maasantiin saaxiibayaal guuleysta